lama helo wadaado waxaan cidi u hawshoona nafta loo hantaaqa halkaad hiigsan leedahay wa laysa lil insaanu illaa maa saca ilaahay sacyi buu tilmaamayaa iyo dadaal burburinta mustaqbalka iyo ku raaxaysiga dhalinyarnimada walaah baa jirta tiraahdaa know the difference between enjoying your youth and destroying your future qofku noloshiisa haddii uu qabanayo nin wax anfacayo oo adduun iyo aakhiraba wax tar u leh oo uu ku raaxaysanayo wax qabadkiisaas aadama kastana deficient iyo wuxuu leeyahay kala dhinaanshiya naaqs uu leeyahay iyo meel ceeba iyo intaba uu leeyahay laga soo reebo ila alladina aamanu kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iimaan qalbigooda laga helay camal wanaagsanna isfaray sabarna iskula dardaarmay calaykum marwaan salaamaya almaadreeyo wax rajeynad wanaagsan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigiina ha barakeeyo mar walbaad joogtaan walaah baa jirta tiraahdaa know the difference between enjoying your youth and destroying your future kala qoro farqiga u dhexeeya inaad dhalinyarnimadaada ku raaxaysato oo si wanaagsan u qaadato iyo inaad burburiso mustaqbalkaaga yacni inaad mustaqbalkaaga burburinayso qofku noloshiisa haddii uu qabanayo nin wax anfacayo oo adduun iyo aakhiraba wax tar u leh oo uu ku raaxaysanayo wax qabadkiisaas waxa weeyaan waa inuu mustaqbalkiisa si wacan u qaadanaya iyo noloshiisa iyo dhalinyarnimadiisa laakiin hadduu qaadanayo nolol ku salaysan burburinta iyo baabiinta mustaqbalkiisa way adkaanaysaa qofkaasi inuu nolosha meel ka gaadho waxaan u gubayaa oo uu maxay ahayday solayaa oo dabka saarayaa mustaqbalkiisa markaa almaadarayaal waxaad kala garataan kala garwaaqsataan burburinta mustaqbalka iyo ku raaxaysiga dhalinyarnimada niyow caado ka dhigta inaad ku raaxaysataan nolosha adaygeeda oo aydan raadinin fudeedkeeda waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka manasalka waxa uu ku leeyahay wa laysa lil insaanu illaa maa saca ilaahay sacyi buu tilmaamayaa iyo dadaal iyo halgan qofku haddii uu dadaalo u halgamo nolosha meel buu ka gaari karayaa laakiin haddii aanu maxay ahayday u dadaalin dee waxaan loo dadaalin lama helo soomaalidana waa sii lahaydba lama helo wadaado waxaan cidi u hawshoona nafta loo hantaaqa halkaad hiigsan leedahay ma garatay amba waxaad hiigsan leedahayba marka niyow haddaad meel gaadhayso doonaysa in wax meel gaadhood meel xaqiijiso dadaal iyo halgan baa kugu jira jannadii ilaahay fardowsana ilaahayna wada geeyey dhammaanteena niyow iska riya maaha isna baa wishii inaan jannada ku galayno iyo iska jeclaysi jannadu ilaahay raxmadiisa lagu galaa laakiin wixii keensanayay ilaahay raxmadiisa inaad u dadaasho dadaal la timaado ilaahay waa quraan ku lahaa waman araada alaakhira qofka ku jirto doonis aakhiro iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmayo janno uu helaay wasaca lahaa sacyaha ilaahay wuxuu leeyahay haddana wasaca lahaa sacyaha haddana xaggeeda u dadaalaya aakhiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kulankiisa dadaal u samaynaya dadaalkiisaasi wuxuu noqonayaa mid ugu mahadiyo mid uu isaguna ku mabsuudo noqonayaa ilaahina subxaanahu wa tacaala isaga ayaa maxaa ahayday u abaalgud fiican ma garatay marka martiqaad ilaahay baa u wanaagsan ilaahay ku martiqaada subxaanahu wa tacaala ya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantiin hayna martiqaado weelmaadare waxaan kula dhiirigelinayaa noloshiina meel ka gaarsiisaan kuna tacabtaan ood ku dadaashaan inaad mustaqbalkiina dhisataan kuna dhisataan dadaal iyo halgan iyo tacab aydan yacni iska rajin wax walba sooda noqdaan war walaa wax hagaagayaa ma jiro haddaan adigu is hagaajinin wax isbedelayaa ma jiro haddaan adigu isbedelin marka halganka nololeedii waa uun tabac iyo halgan iyo dadaal iyo dhiiranaan iyo inaad ku dhac leedahay nolosha maaha inaad dhammaystirnaato ood qof dhammaystiran noqoto waayo qof insaan oo dhammaystiran maba jiraba ma garatay aadama kastana deficient iyo wuxuu leeyahay kala dhinaanshiya naaqs uu leeyahay iyo meel ceeba iyo intaba uu leeyahay ma garatay marka qofka bini'aadamkan uu u baahan yahay in la baraarujiyo uu u baahan yahay in la dhiirigeliyo uu u baahan yahay in lagu taageero wanaagga iyo maxay ahayday khayrka ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaad tihiin ummatii u khayrka badnayd waayo ta'muruuna bilmacruuf wanaaggaad is amartaan wa tanhawna cani lmunkar xumahana waa iska reebtaan wa tu'minuuna billaah ilaahina subxaanahu wa tacaala waad rumayseen oo allah subxaanahu wa tacaala rumayseen marka ummad ugu khayrka badnayd oo ummatu nabiyullaahi maxamed aan wax ku noqonay calayhi salaatu wasalaam waa inuu ilaahay rumaynay xumaantiina iska reebnay wanaaggiina isfarnay marka ilaahina subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa walcasri casrigaan ku dhaartay ina alinsaana lafii khusr aadama dhammaantii wuxuu ku sugan yahay khasaaro iyo khasraan yacni laga soo reebo ila alladina aamanu kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iimaan qalbigooda laga helay camal wanaagsanna isfaray sabarna iskula dardaarmay marka walaalayaal adduunka waxaynu meel ku gaadhaynaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaynaa waxa weeye inaynu nolosheena meel gaadhsiino
نيو قفك walaalkaan khayrkii wanaag la jeclaato marka niyo khayr iyo wanaag baan la jecelahay sidinku way la jeceshihiin yaa noloshin ha nuuriye dadaal bin iska ognahay halgan insha Allah